Asalaamu calaykum. Maalin wanaagsan isku soo noqod wanaagsan. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin dhammaantiinba. Ka hor intaynu guda galin muuqaalka, like inoo saar. Waa maadadeenii farmakolojiga casharkeedii shanaad. Casharkan maanta waxaynu ku baran doonaa thyroid hormone drugs, daawooyinka loo qaato hormoonada thyroidka ama thyroid glandiga daawooyinka loo qaato ayaynu baran doonaa. Qodobada aynu ku baran doono casharkani waxaa ka mid ah inaynu overview ku sameyno thyroidka iyo inaynu ka hadalno daaweynta hypothyroidismka iyo hyperthyroidismka. Waxaan rajeynayaa ilaa dhamaadka casharkani inaad la gaari doontid biidnillaahi jalla wa ala. Qanjirka loo yaqaano thyroidka waxa uu fududeeyaa koritaanka iyo qaangaarnimada isagoo joogteynaya heerkiisa ay nudayaasha kaga jiraan. Shaqada thyroidka waxaa maamula hormoonka loo yaqaano TSH ee ah thyroid stimulating hormone, kaasoo lagu sameeyo qanjirka loo yaqaano anterior pituitary gland. Labada hormoon ee ugu weyn ee laga soo daayo qanjirkani thyroidka ayaa kala ah T3 oo loo yaqaano triiodothyronine oo ah midka ugu aktifsan iyo midka labaad ee isagana loo yaqaano thyroxine oo ah T4. Labadani hormoon ayaa inta badan ah marka laga hadlayo hormoonada laga soo daayo thyroid glandiga kuwa ugu waaweyn. Markay yaraato soo deynta thyroid hormoonka waxaa loo yaqaanaa disorderka noocaas ee imaan kara hypothyroidism, kaasoo ka dhalan kara marka ama keeni karaba marka uu yimaado hypothyroidismka inay dhacdo ama qofkaba lagu arko xaaladahani soo socda: in uu noqdo wadna garaaca qofkaasi mid hooseysa, inuu qofka noqdo mid aan u dulqaadin karin qabowga, in shaqadii maskaxda iyo jirka ay hoos u dhacdo, dib u dhac ku yimaada koritaanka maskaxda, iyo xaaladda loo yaqaano dwarfism ee ah gaabnida oo lagu arki karo xilliga ay socoto carruurta koritaankooda. Soo deynta xad dhaafka ah ee la soo daayo thyroid hormoonka waxaa ka dhalan kara disorderka loo yaqaano hyperthyroidism, kaasoo keeni kara marka qofka inay ku timaado tachycardia oo ah in wadna garaaciisa uu zaa'ido, inay ku timaado irregular heartbeat wadna garaac aan joogto ahayn ee loo yaqaano cardiac arrhythmias, iyo qofka inuu isku arko body wasting, in qofka ay soo daristo miisaankiisa inuu lumo, inuu noqdo qofkii mid nervousness ah oo isku buuqsan, in bukaanka uu isku arko jarayn, ama inuu noqdo mid aanba u dulqaadin karin kulka. Daaweynta hypothyroidismka. Hypothyroidism inta badan waxa uu ka dhashaa marka difaaca jirkeena uu ku sameeyo burbur qanjirkani loo yaqaano thyroidka. Xaaladani waxaa lagu ogaan karaa heerka thyroid stimulating hormoonka. Haddii la ogaado in ay sareyso, waxaa jirta hypothyroidism. Daawooyinka lagula tacaali karo hypothyroidismka waxa ay kala yihiin liothyronine oo loo yaqaano T3, levothyroxine oo loo yaqaano T4, iyo daawada saddexaad ee loo yaqaano Leotrix oo iyadana ka kooban labada daawo ee la soo keenay ee ah T3 iyo T4. Daawada levothyroxine waxaa laga doorbidaa daawada liothyronine marka la daaweynayo hypothyroidismka. Sababtana waxay tahay jirka waa u dulqaadan karaa, midda kalena waxay leedahay longer half life, in ay jirka ku jirto ama muddada ay jirka ku jirayso waa mid aad u dheer. Levothyroxine waxaa kaloo ay si toos ah u keentaa toxicity inuu ku yimaado jirka, taasoo keenaysa marka inay dhaliso xaaladahani soo socda midkood: in qofka ay ku timaado inuu noqdo mid nervousness ah, in wadna garaaciisa uu zaa'ido oo tachycardia uu ku timaado, in qofka uu noqdo mid aan u dulqaadan karin kulka, iyo miisaan yari aan la sharxi karin waxa keena qofka inuu ku timaado weight loss aanan la sharxi karin waxa exact cause-ka ah ee keenay in qofkaasi uu ku yimaado weight loss-kaasi. Daawooyinka lagula tacaali karo haddii levothyroxine ay keento xaaladahani waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano rifampin iyo daawada loo yaqaano
phenytoin. Phenytoin iyo rifampin ayaa ah daawooyinka lagula tacaalo markay yimaadaan xaaladahani toxicity-ga ah ay keeni doonto marka la qaato daawadani loo yaqaano levothyroxine. Waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. Haddaynu ka hadalno daaweynta hyperthyroidism-ka ama daaweynta thyrotoxicosis, cudurkani loo yaqaano Graves' disease waa cudur autoimmune disease ah ka dhasha difaaca jirka ee weerara thyroidka, kaasoo inta badan ah marka laga hadlayo midka ugu badan ee keena hyperthyroidism-ka. Xaaladani waxaa lagu ogaan karaa marka thyroid stimulating hormone heerkiisa uu noqdo mid hooseeya. Daawooyinka loo isticmaalo in lagu daaweeyo hyperthyroidism-ka waxaa ka mid ah daawooyinkani kala ah methimazole, thiamidis, iyo daawada saddexaad ee loo yaqaano propyl thiouracil ee loo soo gaabiyo PTU. Daawada methimazole ayaa laga doorbidaa marka la doonayo in la daaweeyo hyperthyroidism-ka daawada PTU. Sababtana waxay tahay waxay leedahay longer half life oo ah in ay jirka muddo dheer ku jirto, taasoo ogolaanaysa marka bukaanka in loo qoro maalintii 1 jeer. Waxaa kaloo methimazole markaynu ka hadlaynana waxay leedahay adverse effect-geeda ama side effect inay keento waa mid aad u yar. Si kastaba ha noqotee, daawadani PTU waxaa loo qoraa hooyada uurka leh xilliga ay ku jirto 3 bilood ee ugu horeyso uurkeeda. Sababta daawadani loo doorbidana waxaa ka mid ah in methimazole ay keento effect loo yaqaano teratogenic effect. Effectigaas oo ah in cunuga uurka ku jira koritaankiisa iyo development-giisaba ay ku keento xanibaad. Sidaas darteed, PTU marka kaliya ee laga doorbido methimazole waa marka loo qorayo hooyo uur leh kuna jirta first trimester. Waxaa halkan inoogu eeg casharkeeni maanta. Casharka xiga intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum.